isagoo lugihiisa ay dhaawac dartiisu jilceen. Tamiir Abu Aasi waxa uu ku socdaa isagoo cuskanaya qalab bir ah barxadda xabsigii hore ee dowladdii Xamaas oo hadda hooy u ah tobannaan qoys oo barakacayaal ah. Waxa uu sheegay inuu mar la noolaa qoyskiisa meel u dhow qadka jaallaha ah, laakiin ku noolaanshaha halkaasi waxa ay ku keentay qiimo aad u weyn. carruurtayda waxaa la dilay xabad joojinta kadib 29 November iyagoo qoryo guranaya. subaxdii hore ayay baxeen si ay u soo qaadaan qoryo aan dab ku shidanno sababtoo ah waan dhaawacnaa oo ma dhaqaaqi karin, sidaa daraaddeed way caawinayeen. kadib waxaa la ii sheegay in diyaarad aan duuriye lahayn oo Israa'iil leedahay ay bartilmaameedsatay. xabad joojinta ayaa durba dhaqan gashay. Milatariga Israa'iil ayaa beeniyey in ay bartilmaameedsadeen dad rayid ah oo ku dhow qadka jaallaha ah. Waxa ay sheegeen in maalintii carruurta Tamiir la dilay ay rasaas la heleen 2 xubnood oo ka tirsan Xamaas oo ku sugnaa aaggaasi oo ay u arkeen inay khatar ku yihiin ciidamadooda. waxaana ay sheegeen inaanay ka warqabin wax khasaare kale ah. kadib markii carruurtiisa uu waayey, Tamiir waxa uu la cararay qoyskiisa intiisa kale isagoo ka sii gudbay qadka jaallaha ah. laakiin markii qadku uu soo sikaday waxa lagu qasbay in mar kale ay cararaan sida uu ku warbixiyey. markii ugu dambaysay aan barakacno waxay ahayd 9kii bishii Janaayo 2026. qiyaastii 10 maalmood kadib markii carruurtayda la dilay, baldoosar ayaa soo gaaray halkii aan joognay aniga iyo xaaskayga iyo carruurtayda. baldoosarka ayaa ku soo dhawaaday teendhadii aan ku jirnay. tan iyo markii xabad joojintu bilaabatay 8 bilood ka hor, qadka jaallaha ah ayaa 100 mitir u wareegay dhanka galbeed, taasoo ballaarisay maamulka milatariga Israa'iil ilaa iyo in ka badan 60% marinka Gaza. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Israa'iil ay hadda doonayaan inay maamulaan ilaa 70% dhulka, taasoo ka baxsan 53% oo lagu qeexay heshiiskii xabad joojinta. laakiin qof walbaahi uma guurin meel fog. qoysaska qaar ayaa ku laabtay meelaha u dhow qadka jaallaha kadib markii ay ku guuldaraysteen inay ka helaan hooy galbeedka fog. Diya waa mid ka mid ah. waxa uu sheegay in aabihiisu ku dhintay rasaas ay rideen Israa'iil isla aaggaas, taasoo ay beeniyeen milatariga Israa'iil. iyadoo ay taasi jirtana haddana waxa uu doortay inuu sii joogo. أكيد إحنا حياتنا كل يوم في خطر. nolosheenna maalin kasta khatar ayay ku jirtaa. waxaan soo marnay xaalado badan oo cabsi leh. qaarkood waxaa sabab u ah maleeshiyaadka, kuwo kalena waxaa sabab u ah dhinaca Israa'iil, iyadoo taangiyada ay si joogto ah ugu soo siqayaan qadka jaallaha. maleeshiyada ayaa dhac iyo afduub geysta. nolosha halkan waa cabsi. خطف ومش خطف وتفجير وكواد وطخ ويعني الحياة رعب. iyadoo qadka jaallaha ahi uu isa sii bedelayo, goobta ay heli karaan ku dhowaad 2 milyan oo Falastiiniyiin ah ayaa sii yaraanaysa. dad badan xitaa helitaanka meel ku filan oo ay teendha ka dhistaan ayaa waxa ay ku noqotay dhibaato.